ورحمة الله وبركاته. waxbarashada oo guud ahaan waxa weeye waxbarashadu waa shahriga yareyntiisa waxaan ka baraawantaa waxbarashadu inaga isbarana rag halka fadhiya iyo baan ka qana magacyadooda wajiyadooda inta kale jaahil baan ka taas waa maqanta waxbarashada halkeena waa ka maqanta ورينا واسمه نقانو اسكولادان هذا بيان تعليمته هو اساسي waxay qaybsataa miyi iyo magaalo caruurta magaalada joogta itaalka sawaxaya tacliintu waxbay bartaan laakiin kuwa reer miyiga gaar ahaan kuwa reer guuraaga ah way ka qatan yihiin nimcada waxbarashada waxaan soo jeedinayaa in dib loo soo celiyo iskuuladii boodanka ahaa oo caruurta reer guuraaga roob daba socota iyo biyaha laga reebo taa soo jeedinaya iskuuladeenu inta badan waxay baxaan luqadda ingiriisiga afsoomaaliga way ka tageen ingiriisiina ka baydin inankiisa ka ka baxay ka soo aan composition qori karay waraaqi application qori karay dabeetana sidaas ugu gudbaya jaamacadaha dhibaato badan baa ka haysata inay ardigii dib u soo kobciyaan oo shaqadii secondary lagu qaban lahaa ay qayb ka qaadato jaamacaddu farsamada gacanta aad baa loogu baahan yahay iskuuladeeduna ma laha iskuulo ama dugsiyo ku filan ama ardadu ka baran karto farsamada gacanta taa waxaan soo jeedinayaa ardada scholarship loo baxayo dibadda loo dirayo ee dawladdu siinayaan mucaawinka waxbarashada dawladdu siinayaan aynu u diro wixii doonayay farsamada gacanta wax ka bartaan oo dibadda haynaga soo barteen way inagu ma haysanaan waxaan ku darayaa taasi iskuuladan secondaryada ah waxaan soo jeedinayaa in la sameeyo wax la yiraahdo early specialization in takhasusyo loo sameeyo secondaryada oo qaar noqdaan secondary ganacsiga secondary caafimaadka secondary beeraha kii xoolaha nool kii kalluumaysiga kii dhagaxa metal geologiga iyo kii teknolojiyada biyaha taan soo jeedinaya waxaan ku soo khatimayaa caruurta iskuulada gelaysa markay yar yihiin ugu horeysa hal lagu xoro inay quraanka yaqaaniin iskuulka hoose markay galaan ay caruurta yar yihiin macallimiintu ha noqdeen dad diinta yaqaana oo akhlaaqdooda hagaajiya iyo dumar u naxariista wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh